السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآرس سليمان عولاد oo jeelka Gibiley ku xiran oo wuxuu xiran yahay iyo waxa loo soo xiray garanayn marka waa kaaste dadkuna ay ogaadaan waxa la igu xiran waa wadankii abtiyaalada waa kaas garanayn marka sidii qalbi dhiga xilna lay gudbinay oo lay gudbin 4 milyan amba 9 milyan abtiyaalada ay isaaq ay sharakacan maanta waa kaas inta uu maraba meelku waxaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay baraha bulshada aad loogu hadal hayay xariga Aare Suleymaan oo ah muwaadin reer Djibouti kaas oo saldhiga dhexe ee magaalada Gibiley ku xidhnaa Aare Suleymaan ayaa muuqaal uu soo duubay bulshada reer Somaliland kaga codsaday inay ku garib istaagaan inaan muwaadinkani loo dhiibin dalka Djibouti waa sida uu hadalkiisa u dhigay waxa gelinkii dambe ee maanta ku booqday saldhiga dhexe ee magaalada Gibiley Aare Suleymaan xogayaha ganacsiga ee xisbiga wadani Xamse Khayre iyo sidoo kale xogayaha xiriirka gobolada ee xisbigaasi Maxamed Cabdilaahi Jaamac Bookh mas'uuliyiintani ayaa sheegay in Aare Suleymaan uu sidoo kale yahay muwaadin reer Somaliland isla markaasina uu haysto laba dhalasho waa sida ay hadalkooda u dhigeen mas'uuliyiintani oo ka warbixinaya booqashadii ay ugu tageen Aare ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan soo booqanay maanta nin shalay tole lagu xiray Gibiley waa Aare ninkaas saldhiga ku soo booqanay ninkaas aad iyo aad ayuu u fiicnaa wax dhibaatana nooma sheegin in si fiican loola dhaqmay ayuu noo sheegay mid kaliya ka cabanayay waxay ahayd inaanu wax waarna lagu soo qabtay jirin isagoo iska fadhiyo loo yeeray waxaan filanaa in cadaalada la horgeeyo sida sharciga nuriga 48 saacadood gudahood waan sugayaa ninkaas wax dhibaato uu qabo oo hadda jira oo haysta oo noo sheegay habeeraatee ma jirto sida sharcigu dhigayna wuxuu sugayaa in la horgeeyo sharciga waxa kale oo jiri isaguna nin kale oo madaxweynuhu ka hadlay oo gobolkan Gibiley isaguna ka tirsanaa oo madaxweynuhu ka hadlay barigu Djibouti ka soo noqday safarka oo madaxweynaha ka wada hadleen Djibouti oo yiri hawshaasi waan dhameynay waan la soo diinaya insha Allah isagana madaxweynaha looga fadhiyaa insha Allah inuu hawshaasina ay sida madaxweynuhu sheegay u dhamaato hawshaas ayaan maanta ka hadlaynay ninkaasina uu iska fiican yahay warkaas xalay markaan soo baxay anagoo xisbiga wadaniga baan maanta booqanay Aare Suleymaan colaad Aare oo laba dhalasho haysta dhalashada Somaliland haysta wadan kale haysta dhalashadiisa in muwaadin reer Somaliland halka ku xidhan waxaan markaa koowaad soo xaqiijinay ninkaas inuu gacanta Somaliland iyo saldhiga dhexe degmada Gibiley ku jiro oo aan meel loo qaadin sharcigeennuna ma ogolaan muwaadin reer Somaliland dastuurkeena iyo maxkamadaheena haddii uu dambi galay uun baa lagu qaadayaa meel kale warka ay dadku isla dhexmarayeen taacid loo xaqiijisan maanaan arag laakiin waxa la soo xaqiijinay inuu ninkaasi xiran yahay saldhiga ku jiro Gibiley in caafimaadkiisu fiican yahay si uu cana ciidanka runtii ula dhaqmeen annagana waa la noo sii daayay waxba waa la tusay fariintii ummadda reer Somaliland uu baaqay iyadana inay gaadhay dadkii waan ku wargelinay waxa uu noo sheegay inuu helay oo ay dadka reer Somaliland aad ugu kaceen iyadana wuxuu yiri dadkii mahad celin iyo iga gaarsiiyay bogaadin oo aad runtii ugu faraxsanaa in loogu hiiliyay min bar ilaa galbeed ilaa xildhibaanada golaha wakiilada ee saaka ka hadlay arrinta iyadana warkeeda waa la gaarsiiyay wuxuu yiri dadkiina hiilka waan idinka filayay mahad celin iga gaarsiiyay intaana uu soo faray waaran la'aan baa lagu qabtay markaa wax dambi oo uu markaa faraha kula jiray oo markaan wareysanay la noo sheegay haba yaraatay ma jirto qofkuna wuxuu xaq u leeyahay in waaran loo soo gooyo imikana waxaanu rajeynaynaa in 48 saacadood sida uu dhigay dastuurka maxkamad lagu hor keeno eedda loo haystana ay cadaato annagu ka hor dhici mayno marka ilaa la sheego wax lagu haysto iyo cidda haysato toona ka hor dhici mayno waxaanu ka warsugnaa in maxkamadda horteeda la keeno oo ay markaa cadaato cidda haysata iyo wax lagu haysto lagu eedeynaya waxaanu ugu baaqaynaa isaga inta kale xidhan been xorriyadooda loo soo celiyo waayo dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland baa damaanad qaaday xorriyatul qowlka iyo dhiibashada ra'yiga labaduba waxa damaanad qaaday dastuurka